munaasabadan lagu xusayo 75 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku beegneed 20 Diseembar maanta oo kale sanadkii 1943 lagu qabtay saldhigga booliska magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan madaxda maamulka heer gobol iyo degmo saraakiisha kala duwan ee ciidamada dawladda iyo kuwa amisom xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ciidamada booliska ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen gaada ka ciyaar ay si weyn ula dhaceen dhammaan dadkii ka qayb galay xafladaasi ugu horeyn taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Maxamed Macow iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneyl Isaaq Cali Cabdulle ayaa hambalyo ka faahfaahiyay taariikhda ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan iyo marxaladii kala duwan ay soo mareen iyo haatan halka ay marayaan halkaan hambalyo ugu dirayaa booliska Soomaaliyeed sanad guuradii 75 ee ka soo wareegtay aasaaskii booliska Soomaaliyeed 1943 20 Diseembar hambalyo ayaan leenahay hambalyo maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad hambalyo ayaan leenahay waxaan kaloo halkaan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa halkaan inaan hambalyo uga diro salaan aan uga diro booliska Soomaaliyeed meel kasta uu joogo oo ugu sareeyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo taliye xigeenadiisa inay raado hambalyo waxaan hambalyo diiran oo ku aadan sanad guurada 75aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed salaan diiran hawada u marinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed intaas markaan ugu baxo waxaan rabaa warbixin yar oo ku saabsan waxqabadkii ciidanka booliska uu sameeyay dawlad goboleedka Hirshabelle iyo dacwooyinkii soo gaaray saldhigyada booliska dawlad goboleedka Hirshabelle dacwooyinkii soo gaaray guud ahaan waxa weeye 3846 dacwadood waa dhammaan dawlad goboleedka Hirshabelle dacwooyinkiisa markaan kala qaado gobolka Hiiraan 1345 dacwadaha soo gaaray saldhigyada booliska gobolka Hiiraan inta saldhigyada lagu xaliyay waa 952 tirada maxkamadda loo gudbiyay 393 304 waa maxkamadda ayaa sii deysay 11 waa garsuga 78 waa la xukumay gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibraahim Food Cadde xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale xubno matalaya bulshada rayidka oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay kaalinta ciidamada boolisku ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed hambalyo aan leenahay hambalyo munaasabadan maanta halkan la isku yimid ciidamada booliska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo dabaaldagayo marka uu soo gudbo booliska Beledweyne runtii labadan bilood waxa ka muuqato nashaad iyo qurux waayid hore aan ku arki jirin aadan ugu faraxsanahay runtii waxaan rabaa inaad u adeegtaan magaaladan Beledweyne oo runtii magaalo weyn waxaan leenahay maanta waxaan la qaybsanaynaa farxadda ciidanka booliska sanad guuradooda waan faraxsanahay ciidanka booliska haddii aysan shacab lahayn ma shaqayn karaan waxaan kaliya aan rabaa inaan dhaho hambalyo ciidanka booliska Soomaaliyeed sanad guuradii 75aad Korneyl Xasan Dhiciso Xasan taliyaha qaybta booliska Hirshabelle iyo Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax oo ahaa taliye xigeenkii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidamada militariga gobolka Hiiraan iyo sargaal ka tirsan ciidamada amisom gaar ahaan ciidanka Djibouti ayaa iyana bogaadiyay xafladda lagu weyneynayo aasaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Beledweyne aniga Hirshabelle waxaan u magacaabanahay hal sano bar markaan imaahay ciidanka booliska Hirshabelle waxay tiradiisu 160 askari haddana wuxuu maraa 600 askari oo maraa tiradiisa marka meeshaas waxay ku tusay booliska Soomaaliyeed inuu kor u socdo oo kordhayo waxa kale oo rajayaa hadii aan liigaa sanad guurada ku xigta inaan ugu yaraan 2 kulo askari anagoo gaarayna ama ku dhow
inaan ku mari doono feestada soo socoto qaab dhismeedkii ciidanka booliiska oo lahay aan u dhisana haddii alla yidhaah waxaan hambalyaynayaa dhammaan ciidanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay yihiin hooyadii ciidanka qalabka sida waxaad istaag looga baahan tihiin garab taagnaanayna insha Allah waxa weeji meeshani taariikh bay leedahay taariikhda waxa weeji wala military wala amisom halkan waxba kama qaban waxa laga qabtay halka magaalada laga qabtayna waa halkan saldhigga booliiska cadaaladda ka bilaabata haddana cadaaladda adinka aan ka shaqeynayna maxkamadda garsooraha jooga cadaalad ma xukumi karo horta waxaan idin leeyahay marka koowaad cadaalad ka shaqeeya booliiska wanaagsan shaqada oo qabto dhan dhammaanteed waa cibaado horta waxaan leeyahay waa cibaado aamina inay booliis tihiin oo booliis fiican ahaado cibaadaysta waa cibaado gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Xagar oo gabagabadii xafladda soo xiriyay ayaa hambalyo ku aadan xusga ciidamada booliska Soomaaliyeed u diray dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ciidamada booliska ee ka howlgala gobolka waxaan leeyahay hambalyo saraakiishiisa saraakiil xigeentiisa iyo dableegiisa iyo xaasaskooda iyo caruurtooda hambalyaan leeyahay meel kasta ay Soomaali ka joogaan laga bilaabo goobta Hirshabelle oo taaganahay gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa kale ilaahay guul ha lagu wada gaarsiiyo booliska Soomaaliyeedna ilaahay nabad iyo guul aad u mahadsantihiin waana idinku faraxsanahay shaqada halkaa ka sii wada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadan lagu dabaaldegay 70 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee lagu qabtay saldhigga booliska magaalada Beledweyne ayaa ku soo ilaatay jawi aad u nabdoon Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed Beledweyne